للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. مدحنا kala duwan ee goobtan ku sugan meerka magaalada iyo gudoomiyaha gobolka ay leeyihiin qof kasta waxa ku saranayaa maqaamkiisa iyo magaciisa. inta dabadeed kulli maanta waxaan halkan u joognaa shaqo weyn oo ah shaqo qaran. waxa aad u faahfaahiyey oo aad u sharaxay madaxda gobolka iyo madaxda dowladda hoose magaalada Berbera. waxaan halkan maanta ku haynaa mashruuc weyn oo in badan runtii soo dhacayay soo socday la soo waday. mahadnaqa koowaad waxaan sameeyaa dowladda hoose oo runtii mashruucaas turunturooyin badan soo maray iyo dalcado badan soo maray marna waan ka niyad jabin ama aan ka hadhin oo runtii si fiican u daba socday. sida awgeed maanta waxaan ku suganahay magaalada xeebtii Berbera laftigeedii. waxaan dhagax dhigaynaa mashruuca Berbera Beach Front oo runtii qaybtiisii labaad ama qorxintii magaalada Berbera oo ahaa mashruuc weyn oo EU bixisay dhinacna bartiner kala ah soo marayay hay'adda UN Habitat. dhisidiisa iyo gacan ku hayntiisa ay wadeen contractors reer Somaliland kormeerkiisa iyo dabagalkiisa ay wadeen dowladda hoose degmada Berbera iyo wasaaradda howlaha guud si ay la socotaan sida xeerarka qaranka iyo mandateska qaranku uu qabo. xeer 7/2015 xeerka la yiraahdo wasaaradda howlaha guud wuxuu siinayaa dabagalka iyo ilaalinta mashaariicda dhismayaasha qaranka. sida awgeed maanta waxaa lama horaan noqotay muddana aynu soo wadnay annaga iyo dowladda hoose risalka aynu saaka u joogno iyo dhagaxdhiga aynu saaka u joogno waxyaabaha ka koobnayd iyo componentska ka koobnayd hadday tahay garoonka kubadda cagta, hadday tahay garoonka kubadda kolayga, hadday tahay qaybtii dumarka ay ku dabaalanayeen, qaybtii familiga iyo qaybtii dalxiiska, sidewalkii oo isna aad u dheer oo ilaa kilomitir iyo something qaybtan labaad ay tahay. wixiiba runtii waxaa inooga warramay injineerkii waaxda howlaha guud iyo injineerkii qorsheynta iyo meerkii oo ah mashaariic dhammaanteed aynu uga baahannahay horumarinta xeebta Berbera. runtii waxaa looga baahan yahay waxaa laynagu caawiyey inaynu ilaashano oo dabagalno wax inaga aan leenahay shaqadeena ahna aynu qabsano si aan la wada soconno dadkeenu runtii uma jajabna ismaqalka ama dabagalka ama ilaalinta hantida qaranka. laakiin waxaanu rajaynaynaa ka mas-uuliyiin ahaan ilaahay deenada mas-uuliyaddeena saaray kullukum mas-uul wa mas-uulun can raciyatihi binabiga calayhi salaatu wasalaam. kale aakhirana waa layna weydiinayaa waxa weeye mas-uuliyaddu intaan madaxweynada la gaadhin iyo cid kala toonna. waxaan rajaynayaa in data ilaahay ay ka weyn tahay mashruuca. runtii waa mashruuc weyn dhinacyo badan oo ka kooban yahay. saaka haddaan u faraxsanayn dhagax dhigayno wixii dambena waxaanu bulshada reer Somaliland ama bulshada gobolka saaxil ama bulshada degmada Berbera aan u ballan qaadaynaa wax qurux badan oo wanaagsan in halka lagu yimaado. waxyaabaha ugu badan ee dalkeena ku dayacan waxaa ka mid ah xagga dalxiiska. haddii maanta mashruucaas inoo horgalo oo wanaagsanaado runtii waxaa imaanaya dalxiisayaal fara badan, dad badan oo nagu soo dhiiranaya, ummad fara badan oo waxa weeye meelo kala duwan ka timaado. maanta jigjiga cid inoogu dhowo runtii intii wadada la dhisay saaka waxaan soo socnay baan maanayaa saacad iyo 10 daqiiqo oo waqti aad u yar. intii wadada la dhisay dadweynaha jaarka ahaaba si weyn loogu soo dhiiranaya. xeebteena haddaan qurxisano oo ilaashano aan dhisannana inta in ka badan baa inoo imaan doonta. waxaan ka ballan qaadaynaa halkan mudana maayir mudana gudoomiye ka wasaarad ahaan waxa la leeyahay inay xidhma haddii supervision tahay hadday ilaalin tahay inaan hoogan ugu jirno sidaad ugu jirtaan kuna darajeli doono shaqooyinka qarankana haddii aan dhinacyada laga istaagin hadday magaceedana runtii dadku way kala haystaan wax la yiraahdo deegaan wada ahayn culayskii negatifka ka yimaadana waa laga kala dhintaa. laakiin waxaan ballan qaadaynaa in maanta mashruucaas aan dhagax dhignay aan bari joogno ilaalino wixii laga baahday iyo waxaan ku dari karnaba inaynu runtii ku taxadarno sidaan ugu dhagax dhigan yahay maanta mashruucani festoodii maraha mashruucu si guud loo dhagax dhigayo waa qaybtii labaad. waxaan maanta launch karaynaa aan dhagax dhigayno waxaan ku soo ururinayaa hadalkan kaga baxaya ilaahay tawfiiq lahayn waafajiyo wixii shaqo ah qaran oo wanaagsan ilaahay heligu duwo buuqa iyo qayrooyinka iyo waxyaabaha iska jirjira Soomaaliland kale iska waxaysaa iyagana ilaahay naga soo ururiyo oo si wanaagsan u dhamaysan jirnay. ilaahay noogu dhameeyo shaqooyinka qaranka ee maanta haynana runtii shaqo qaran waxaan rajaynayaa in ilaahay nagu gabagalo inuu
barakeeyo tursaquuna calaa niyaatikum baa la yidhi inana niyaddeenna kole siday ku jirtaa waxa weeye waxaas inuu wanaagsanaado maanta kadib ama maalin dambe inaynu sugnanayo inta ka weyn noloshan ka ballaaran si weynaynu xadhigga uga jarno wabillahi towfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.